kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Muqdisho qodobada ugu waaweyn warkeena waxaa ka mid noqonaya Al-Shabaab oo weerar culus ku qaaday guri lagu daweynayay askar macawisley ah oo kusoo dhaawacmay gobolka Hiiraan dhimashada saraakiil ka tirsan dowladda federaalka taliyihii ciidanka Haramcad Fanax oo ku dhaawacmay qaraxa iyo dagaalka lagu qaaday guriga dowladda federaalka oo sheegtay in ay badbaadiyay qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa guriga Al-Shabaab oo sheegatay iyo wararkii ugu dambeeyay ammaanka Muqdisho ayaan saaxiibayaal warkan ku falanqeyn doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaan eegi doonaa balse marka hore daawade u diyaar garooba qodobada hordhaca warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku horeynay Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday guri lagu daweynayay askar macawisley ah oo kusoo dhaawacmay gobolka Hiiraan dhacdadii ugu yaab badneed ayaa maanta ka dhacday gudaha magaalada Muqdisho galabta waxaa la weeraray guri ku yaala degmada Cabdilcasiis gaar ahaan xaafadda Minraayo halkaas oo la sheegay inay hooy iyo sidoo kale gabaad u ahayd dhalinyaro xaq u dirir ah oo ku jiray dagaalka lagula jiro kooxda Shabaab kuwaas oo kusoo dhaawacmay gobolka Hiiraan sidoo kale qarax ayaa lagu bilaabay guriga kadib waxaa xigay weerar toos ah oo ay ku gudaha u galeen dableedii hubeysanida kooxda Shabaab ee soo weerartay gurigaasi weerar ku bilowday qaraxyo ayaa waxa uu ka dhacay xaafad ku taala Minraayo degmada Cabdilcasiis ee magaalada Muqdisho sida xogta la helayo goobjoogayaal ayaa dhanka wararka u xaqiijiyay in jugta qaraxa kadib gudaha guriga ay ka dhaceysay rasaas xooggan oo u dhaxeysay ciidamada gudaha ku sugnaa iyo kooxdii soo weerartay guriga ee Shabaab gurigan ayaa xogan helnay waxay sheegaysaa inay ku sugnaayeen qaar ka mid ah ciidanka deegaanka oo kusoo dhaawacmay dagaalka dowladda kula jirto kooxda Shabaab ee gobolka Hiiraan wararka qaarkood ayaa sheegaya in guriga ku sugnaa taliye ka mid ah kuwa hogaaminaya dagaalka gobolka Hiiraan xaaladda ayaa hadda isbedelaysa wararkii ugu dambeeyay ee guriga la weeraray haddii aan eegnana waxaa magaalada Muqdisho ka socda iminka dagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda federaalka iyo kooxda Shabaab oo weerar ku qaaday guri ku yaala xaafadda Minraayo ee degmada Cabdilcasiis guriga ayaa waxaa lagu qaaday weerar ku bilowday qaraxyo xoogan waxaana kadib xigay weerar ay maleeshiya ku galeen qaraxaasi guriga kadib qaraxa dhacay afaafka hore ee guriga ayaa sidoo kale saraakiisha amnigu aaminsan yihiin inuu ahaa qof ismiidaamiyay oo uusan baabuur ahayn dableeda guriga galay ayaa laamaha amnigu aaminsan yihiin inay gaarayaan ilaa iyo 4 qofood oo weli ka dhex dagaalamaya gudaha guriga la weeraray guriga ayaa xogaan helnay waxay tilmaamaysaa in inta badan la soo badbaadiyay dhalinyaradii macawisleyda halkaasi ku sugnayd iyo saraakiil kale oo gudaha gurigaasi ku sugnaa iyadoo wararka qaarkoodna ay sheegayaan in halkaas ay ka dhaceen dhimasho dhaawac xoogan inkastoo weli aan la cadeynin wararka ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ay dagaal adag hadda kula jiraan kooxda Shabaab ee soo weerartay guriga ku yaala degmada Cabdilcasiis dhinaca kale Al-Shabaab baahinteeda ayay ku sheegatay in kooxdooda ay fuliyeen weerarka isla markaana ay gudaha u galeen guriga hoosida ay sheegeen ay ku sugan yihiin saraakiil sare Al-Shabaab waxa ay sheegteen inay 10 macawisley ah ku dileen weerarka sheegashadaas oo aan weli si madax bannaan loo xaqiijin karin dowladda Soomaaliya ayaana weli si rasmi uga hadlin dagaalka ilaa hadda ka socda guriga degmada Cabdilcasiis ku yaala ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa deegaanka ayaa olole military oo ka dhan ah kooxda Shabaab ka wada gobolada ee dalkan Soomaaliya howlgalladaas oo dhul ballaaran dowladdu ku qabsatay ayaa waxay kooxda culays xoogan u saartay magaalada Muqdisho iyagoo fulinaya qaraxyo iyo sidoo kale weeraro toos ah goor hore oo maanta ay ahayd markii qarax uu ka dhacay magaalada Muqdisho oo ka badbaaday sargaal ka tirsan laamaha amniga gaar ahaan qaybta VIP-da ee ilaalisa madaxda qaranka ee Villa Soomaaliya oo Iraa Maxamed Daahir iyadoo askartiisa iyo shacabka qaraxaasi ku waxyeeloobeen ammaanka Muqdisho ayaa sii xumaanaya dhowrkii toddobaad ee tagay waxaana soo kordhay dilalka iyo qaraxyada ay kooxda Shabaab ka geysanayso gudaha magaalada Muqdisho arrintan ayaa sheeganaya sabab u tahay in kooxda ay wajahayso culays xoogan isla markaana ay rabto inay iska yareyso dagaalada gobolada uga socda taasina ay keentay in ay soo galaan gudaha magaalada Muqdisho oo weeraro iyo qaraxyo toos ay ka fuliyaan waxaa la soo sheegayaa in weerarka hadda ka dhacay magaalada Muqdisho ay ku dhaawacmeen saraakiil muhiim ah kadib markii la sheegay in halkaas ay gaareen ciidamada gaarka ah ee Haramcad dadka ilaa hadda la xaqiijiyay in weerarkaasi ku waxyeeloobeen waxaa kamid ah
taliyihii ciidanka Haramcad Fanax oo ku dhaawacmay qaraxa iyo dagaalka lagu qaaday guriga ku yaala degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir. taliyaha ciidanka Haramcad taliye Fanax ayaa sidoo kale la sheegay in dhaawaciisu yahay mid oo aad u culus, waxaana la geeyay qayb ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho, gaar ahaan isbitaalka Erdogan. sidoo kale waxaa la sheegay in isagoo dhaawaca uu aad u dagaalamay, balse markii dambe tabartu ay dhigtay halkaasna ay kasoo qaadeen baabuurta gurmadka degdega ee ambalaas ee ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho. taliye Fanax ayaa horkacayay ciidamada geesiyaasha ah ee ka hortagayay weerarka kooxda shabaab ee kusoo qaadeen guriga Cabdilcasiis ku yaala ee magaalada Muqdisho. isagii ciidankiisa ayaan la sheegay in dagaal adag ay kula jireen kooxdaasi, ugu dambeynna ay sabab u noqoteen isagu dhaawacmo. ilaa iyo haddana waxaa la sheegay in guriga weli ay ka dhex dagaalamayaan kooxdii soo weerartay ee Al-Shabaab. dowladda federaalka Soomaaliya laamaha amniga qayb ka mid ah la xiriirna ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in la soo badbaadiyay qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa gudaha guriga, isla markaana weli uu soconayo howlgallo lagu soo afjarayo weerarka kooxda weesan ee Al-Shabaab ay kusoo qaadeen degmada Cabdilcasiis guriga ku yaala. waxayna hadda u muuqataa in ay kooxda Al-Shabaab si laba jibaarayaan weerarada iyo qaraxyada tooska ay ka fulinayaan gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. wararkii ugu dambeeyay ee dagaalkana waxay sheegayaan in xaaladdu ay culus tahay, isla markaana ay hadda u muuqato in kooxda shabaab ay Muqdisho uga fududaatay in weeraro ay geystaan. mana jirto ilaa iyo hadda wax hadal oo ka soo baxay laamaha amniga oo ku aadan in howlgalkaas soo afjaray, balse waxay u muuqataa in mas'uuliyad darre amni oo weyn ay ka taagan tahay Muqdisho, isla markaana saraakiishii loo xil saaray hawshan in ay u muuqato in ay hadda ay aad u wajahayaan fursad ay ku howlgeli karin, maadaama si weyn ay uga shakisan yihiin in xilal kale ay qaadayo. waana qayb ka mid ah sababta keentay inay sii kordhaan amni darrada caasimadda iyo dilka kooxda shabaab geysanayso gudaha magaalada Muqdisho. guriga la beegsaday maanta ayaa waxa uu ku yaalay oo lagu daweynayay dhaawacyada macawisleyda laga keenay deegaanada gobolka Hiiraan oo ay dagaal kula soo galeen shabaab. kooxda shabaab ayaana waray saareen waxay ku sheegeen in 70 askari ku dileen weerarka degmada Cabdilcasiis ka fuliyeen, waxaana aysan soo bandhigin cadeymo muujinaya sheegashadooda. dhanka dowladda Soomaaliya ayaana soo bandhigin cadeymo muujinaya sheegashadooda, iyadoo dowladuna warar soo baxay sheegaan in weli dabli ka tirsan kooxda shabaab ay ka dhex dagaalamayaan gudaha guriga, taasina ay keentay in dowladdu ay qariso xogta weerarkaas iyo dadka badbaaday. Jenaraal Garawey, nin la yiraahdo ka tirsan ciidamada militariga, ayaa la sheegay in xitaa guriga ku sugnaa oo isagu ay badbaadiyeen ciidamada amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya. guud ahaan saaxiibayaal waa naga intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda Muqdisho. tan iyo kulan dambe waxay kaga tegeynaa sidaas nabadgelyo.